kadib 8 sano uu hayay gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Maxamed Shukri Xululo waxa uu maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu gabi ahaanba uu iska casiyay xilkii iyo xubnimadii uu ka hayay gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland waxaana uu ka hadlay sababaha ka dambeeya is-casilaadiisa maanta way bishu tahay 30kii bishii 12aad 2018 maalintii ugu dambeysay aan maleeynayay go'aansaday shaqaalaynta la socodsiiyo xilkii gudoomiyenimo ee rugta ganacsiga aanu hayay sababa aniga ay gaar dartood waxaan go'aansaday inaan iska casilo gudida maamulka oo fadhidana marka aan u bandhigay way ka aqbaleen waan ku mahadsan ko state sano dhow aan xafiiska xilkiisa gudoomiyenimo hayay 2011 ilaa imaka 3 sano ka horeeyana waxaan ahaa gudoomiye ku xigeen 11 sano ama 10 sano iyo xogagaas aan joogay waxay u muuqatay inaan intii maskaxdeeda aan tuujin karayay ee xafiiskan aan u faa'iideyn karayaan u faa'iideeyay wixii aan ka gaabin karayay daa ka gaabiyay sida wadeed waxa la gaaray xilligii cid kale oo halkaan soo gaarsiiyay ka sii qaata xilkii xafiiska uu la wareegi lahaa geeska kalena gudoomiye Maxamed Shukri Xululo waxa uu si ku meel gaar ah ugu wareejiyay gudoomiye ku xigeenkii xilkii rugta ganacsiga Somaliland iyo midaan guurinba ganacsiga lahayd aan la wareegay aanu ama inta joogay soo kordhiyay faylkaas ay ugu qoran yihiin ku soo dhaw Wayala Ismail Somali News Hargeysa.